ومركي كوباد إثيوبيا قرأته إن شعب كتغريغا لوجست حسوق لوجست أبي هو قرأ إن شعب حسوق لوجست حسوق بان لوجست قرأ مقالوين بولي بقى ودول استاجوا حول مقالوين كحسوق كدعي حسوق اللي بكره ما أنه وانقرأ إن شعب كتغريغا اللي حسوقي عيدا مدى إريتريا أي فلدنبيت جيستين وقت قايدة هيد بودو سو ورسحافك كوشاي وقت قايدة هيد بودي وأنه مهد عليني قرب إريتريا قرب كنيسينيس لكن مهد علين تاسي ما قريسا بودو ما قرنايسو dhibaatadii ay geysteen mar labaad fursad ma siinayna dhibaato ay shacabkana ugu geystaan bul shacbiya oo erigaas oo adeegsaday moogta bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti waxaan oo wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogta waxaynu qodobkan ku eegi doonaa haddii rabbi qadaro ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa digniin adag u jeediyay dawladda Eritrea oo uu sheegay inay faragelin baan ku hayso waddanka Ethiopia sida uu hadalka u dhigay arintaasan jecel lahayn aan dhowr iyo 10 daqiiqo ay nagu soo aadama yara falanqeyno waxa ila jooga صاحبك عبد الشكور وبالقضب كان وحكا ويدين دون عبد الشكور وسو دغو ابي احمد حكا شيرتي بسم الله الرحمن الرحيم نور هذا شعبك Soomaaliyeed daawanaya baan salaamaya bilihii u dambeeyay waxa xiisad aad u kacsan ay ka jirtay gudaha Ethiopia Eritrea oo Ethiopia waa tii sheegaysa inay badda ay gaarayso si ku gaadhaba Eritrea waa tii sheegaysa inay Ethiopia xuduudda soo talaabi dooneen ee khilaafka ay ku xallin doonto gudaha Ethiopia iyadoo ula jeeda Ethiopia dan isku jabinaya way soo jiitamaysa maalmihii u dambeeyay waxa la arkayay ciidamada Ethiopia aad u fara badan oo dabaabaad fara badan ku qalbaysan oo si guuraya dhinaca ay Tigray iyo xuduudda Eritrea ay la wadaagtay Ethiopia walow Ethiopia ay ku sheegtay inay ciidankaas ku noqon doonaan goobihii ay ka shaqeyn jireen kolkii dambe xarumahoodii oo dagaalkii waqooyi u dhacay ka soo maqnaa inay ku noqon doonaan xiriyaha qaybo badan oo kamid ah waxa gacanta ku haya ciidanka Eritrea gacanta ku haya oo maysan dib uga laabanin sidii dagaalkii waqooyi u dhacay marka hadalkan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo xiisada labada dal ay marayso dagaalkii markii laga yimaado 2000 istaagay ee Ethiopia iyo Eritrea dhaxmaray 98 ilaa 2000 socday labada sano socday dagaalka intii ka dambeysay xiisadii ugu sareysay yaa la maraya xilliga maraya heerkii ugu sareysay xiisadu maraysa Eritrea gudaha Ethiopia ku jirta ciidamo jabhada fara badan bay Ethiopia ku tababartay faana gacanta maaragtay gacan saar oo la leedahay ay dambeeyay Abiy Ahmed inta badan markuu ama Eritrea wax ka sheegay ama meel kale dandaansanay baarlamaanka hor hadli jiray baarlamaanka ka hor hadlay maya baarlamaanka hor hadlin wuxuu la hadlayay shacabka Tigray oo Tigray u tagay maya luqadda Tigrayga ayuu war saxaafad ku qoran soo saaray oo uu kula hadlayay shacabka Tigray kula hadlayay qoraal meel badan baa laga baahiyay Abiy marka wuxuu la hadlayay shacabka Tigray uu la hadlayay dhibaatadii gaadhay TPLF soo haray mar Tigray hore weerar ku qaadayay aan hadan ku xasuusto kugu daro markuu weerar ku qaadayay sidan oo kale shacabka Tigray uu la hadlay Abiy Ahmed oo yiri maartay maxaan ku raday dawladdiini waa idinku duulimaan kuma maartay nidaamkan sharcigan soo celinayna saas uu hadlay walaal hadda uu sidii u hadlin laakiin khudbadii way wagtaay markii meeshu uu digniinta uu diriyay TPLF uga diriyay hadda digniinta wuxuu u diray Eritrea u diray laakiin Tigray hore wuxuu digniinta u diriyay TPLF u diray hadda TPLF waa ka bootiyo wuxuu u dirayaa Eritrea fariinta u diray marka shacabka Tigray uu la hadlayaa marka ma wixii aan idinku sameeyay karaa la hadlay wuxuu qaray horta in xasuuq loo geysto qaray waa markii koobaad ee Ethiopia qarato in shacabka Tigrayga loo geysto xasuuq loo geysto Abiy waa qaray in shacabka xasuuq loo geysto xasuuq baan loo geysto qaray magaalooyin buu waliba dul istaagay wuxuu magaalooyinka xasuuq ka dhacay xasuuq la iloobi karo ma annagu waan qaraynaa in shacabka Tigrayga la xasuuqay oo ciidamada Eritrea ay faldambeed geysteen waqtiga ayada ahayd buudo soo war saxaafad ku sheegay waqtiga ayada ahayd buudo waanu mahad celinay garab Eritrea garab kaniisinis laakiin mahad celintaasi ma qirayso buudo oo ma qaranayso dhibaatadii ay geysteen mar labaad fursad ma siinayna buudo dhibaato ay shacabkana ugu geystaan buudo shacbiya oo erigaas oo adeegsaday moogta shacbiya oo inta badan loogu yeero xukuumadda Eritrea ka jirta ay ugu yeeraan Ethiopia ma siinayna buudo fursad labaad oo shacabkanaga ku waxyeelayaan haddii ay isku dayaan buudo mar labaadna waxay noqon doontaa buudo isku daygoodii u dambeeyay taa macnaheedu Soomaaliya dambiila shalay ahaa maantana kii dambiga aan wada galaynay baa dambiila de xeer xidhaya ma jiro askari moogtahay maaragtay maxaan ku radaa dalkan haysta 5 8 sano hadda joogay aan hal maalin dagaal ka bixin
labadii bilood saddexdii bilood ee horreysay uu diyaar garoobayay urumahayo laakiin intii ka dambeysay oroma dagaal bay kula jirtaa oo oola dagaal kula jirta faano isku garab haayeen shalay isku xisbi haayeen baa dagaal kula jirta ciidamadii deegaanka axmaarada oo liyo haylka la dhahayay oo dowladdii hore ay maaragtay maxaan ku radaa ay aasaastay oo ciidamada deegaanadu ay leeyihiin ba ahaay oo ciidamada dowladda kabayay oo dee khilaafaadka deegaanada ka dhex jira inta badan ciidanka militarigu xalintiisu way ku adag tahay laakiin ciidamada deegaanku maadaama ay yihiin dadkii deegaanka oy dhibaatada deegaanka og yihiin oo dad deegaanka ka dhex yimid yihiin oo deegaankooduna joogaan way u fududahay inay dhibaatada deegaanada xaliyaan marka ciidanka liyo haylka la dhahayay oo aad u xoog badnaa oo ciidanka deegaanka Tigray ay lahayn sida ciidanka liyo booliska oo kale iyagu liyo hayl bay lahayn oo liyo boolis oo kale marka ciidanka liyo haylka la dhahayay ciidamada gaarka deegaanka axmaarada maanta waxay si buuxda uga dagaalamayaan uga dhex dagaalamayaan faan uga dhex dagaalamayaan oo ku biireen marka ciidankii oromiya ee u yimid badankoodii waanta oleg la socdaan oo ciidamada isagoo aasaasay mooyeen intooda badan oleg la socdaan TPLF soo dhanayd badee waa kuwa dagaalamaya oo macal ciidankii liyo booliska Tigrayga iyo maaragtay ciidankii TPLF la dhahayay iyo ciidan gadaalkaas TDF wixii oo dhan iyagoo isku duuban isagay la dagaalamayaan iskama samaysmin dagaaladan Nurow waxay ka imaanayaan oo ay ku imaanayaan waxyaabaha qalafsan ee dalka gudihiisa ka jira iyo isdiidooyinka faraha badan ee dalka gudihiisa ka jira dhaqaale xumo dalka gudihiisa ka jira waxaas oo dhan oo isbiirsaday ayaa keenaysa dhibaato gudaha keenaysa rabitaanka qalafsan ee kursigana way keenaysaa oo dee damaca kursiga oo dee taa iyada Afrikaan buu yahay walow qaabka uu u socdo hadduu dagaalada ka reebi lahaa Abiy Ahmed la dhihi karo waa hogaamiyihii ugu fiicnaa Ethiopia soo maray qarniyadii dambe waa hogaamiyihii ugu fiicnaa ee qarniyada dambe soo mara markaan fiirino bilicda iyo magaalada soo qurxiyay xisbiga maaragtay uu sameeyay oo maaragtay xisbiga barwaaqa shucuubta si uga dhex muuqdaan oo ahayn kaliya de xisbiga IPRDF ama xisbiga IPRDF korna ma jirin ba xisbi oo kaliya waxa jiray dhargii baa jiray way marka dad haduu fiicay dad buu noo fiicnayn abi kali kuwa intuu laayay oo gabta ka saaray hadda wuxuu leeyahay waa la xasuuqay hadda dagaal buu wada dagaal cusub ma daalin wali waa askari almeetaysan maaragtay maxaan ku raadaayay energy-giisu boqol yahay dagaal u cad yahay dagaal u socda dagaal u qalab qaatay maalin dhaweyta wuxuu tagay Azerbaijan buu tagay Azerbaijan waad ogtahay inta badan Afrikaanku drone bay ka soo iibsadaan drone Armenia la dagaalamaysa Turkiga dariska la tiibu tagay oo waxyaabaha ugu badan ee calaaqaadka ka dhaxeeya Armenia iyo Azerbaijan iyo Ethiopia waa drone-iska waa warshadaha Ethiopia laga sameeyo drone-iska marka waxay soo dhan awoodiisa dhan wuxuu soo geeyay 70% wuxuu soo geeyay inuu dagaal galay hadday dhaqaale noqoto ciidankii buu galiyay hadday qalab noqoto ciidankii buu galiyay hadday maaragtay maxaan ku raday juhdi kasta maanta ciidan buu galiyay marka malaayiin ciidana soo dagaalami doonaan baa la garanaynin in kasta tayadooda daad sagaliito garanayna tayadooda ay tayo bahiblaaya tahay malaayiin ciidan u sameeyay oo ama kuwa deegaana ama kuwa maaragtay maxaan ku raday heer federaal ciidamadiisu dhan hadda waxay ku sugan yihiin labada gobol oo Axmaarada iyo Tigrayga xuduudda Tigrayga iyo Axmaarada gudaheeda anytime buu waxa bilaaban kara dagaal baa bilaaban kara hadalkiisana waxa loo fasiran karaa soo hadlay ra'iisul wasaare dalka ugu sameeyay waa hadal saameyntiisa la Nurow oo hadal iska dhihi kara ma Eritrea muxuu leeyahay marka Eritrea noomso waa inay ka baxdu leeyahay faragelinta ay Ethiopia ku hayso weynaydiiso faragelinta maxay tahay ciidamada joogay ma ciidamada ma baxin maga afka laga dhawrayaa afka yaa laga dhawrayaa ciidamada ha baxaan oo de waxay ku noqonaysaa Eritrea ciidankeedii baa Tigray joogo oo gobolka Tigrayga joogo oo Melblaayo joogo han naga baxaan oo 24 saac baan u qabtay bil baan u qabtay 2 bilood baan u qabtay inay ku baxaan ma yiri waxba ka sokeeya nimanka TPLF ahaa ka sokeeya Eritrea in loo hanjabo waxa ka sokaysa in Tigray la maro moogta marka hanjabaad Eritrea waa iskaga dhacaysan mooyeen ka baxa wax la dhihi kara ma joogna ku filan sababta kama soo warrami karo inay joogaan ma batay karo oo mid kale waxay ku tahay moogtay samcad dil bay ku tahay Ethiopia maanta inay dhacdo
dal deegaanka naga in kastoo dhowr jeer ba dhaxeenba oo ay qirayaan inay ku sugan yihiin haddana ra'iisul wasaaraha afka ku ballaariyo dal kale gudaha ku jira way bahdil ba ku tahay dal awood sheeganaya dalalka Afrika ugu awood badan baa nahay leh sanadii de Afrika oo dhan kali waxayeen ba inta badan Afrikaanka way u libaxayeen waxa dhan anagu libaxa Afrikaanna hanjabaad aad ba u Ethiopia ugu horeeyaan wadarta macluuqadooda macluuqada Ethiopiankii waa hanjabaad mugta hadduu hada ruux kula hadlayo inuu kula dagaalamo ma saayo hanjabaad ba ka samaysan tahay marka maadaama ay dad iska hanjabaad yihiin oo dad iska bool xafta yihiin u yar diidaya inuu maaragtay maxaa afka ku ballaariyo Eritrea ba gudaha ku jiro laakiin ciidanka Eritrea gudaha Ethiopia waliba deegaanka Tigray oo meelo muhiim ah waliba goobihii la isku dagaalay Ethiopia dagaaladii ka dhacay 98 ilaa 2000 ka dhacay dhammaan waxa gacanta ku haysa Eritrea gacanta ku haysa dagaal Eritrea iyo Ethiopia mar kale dhaxmara oo TPLF ay ka madax banaan tahay ma dhici karaa maya sano ma dhici karo TPLF waa geerideeda in inta la dhaafo oo ay aamusto lala dagaalamo Eritrea laga soo guuleysto waa geerida Tigray ba warkan waxay warkaan fursad jadiid waxay warkaan Eritrea iyo Abiy oo isdagaalaya inay ka dhex faa'iideystaan ba fursad jadiid warkaan marka mar walba hadda waa inay mar walba dagaalku wuxuu ka bilaabanayaa xuduudda axmaaradu ka bilaabanaya Eritrea iyadoo la isla jiitamayo yaa la isla tagay haddii maaragtay Tigray la dhaaf haddii kale iyadoo la caaboon yahay xuduudda Eritrea dagaal kama bilaabanayo wuxuu dagaal ka bilaabanaya xuduudda Tigray ka bilaabanaya Tigray baana ka soo sokeeya Eritrea ka soo sokeeya oo maanta Eritrea waxay rabtaa inay adeegsato Ethiopiaanka inay soo adeegsato sababta axmaar adeegsanaysaa Tigray adeegsanaysaa Afar adeegsanaysaa abshkuro gabagabadii TPLF iyo Eritrea midna jawaab ka bixiyay hadalka Abiy Ahmed maya wali jawaab laga bixinin wax jawaaba oo wali ka soo baxday ma jirto hadda distant baan aqrinay waxa ugu dambeeyay wuxuu ahaa la soo galiyay hadalkii ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed buu ahaa oo hanjabaad aad u qalafsan oo ka dhex muuqatay iyo handadaad iyo maaragtay maxaan ku raadayay inuuna ka foorarsan waxa gudihiisa ka socda xasuuqiiba mar labaad uu leeyahay way sii wadaanoo way sii geysanayaan oo waa sida hadalka ku dhiganay gudaha Ethiopia dabcan oo jabhada adeegsanayaan faragelinta faragelintu sheegayo waa moogtay waa faano waa TPLF waa guguma maaragtay maxaan ku jabhadii guguma maaragtay Jafarta ka dagaalamayay marka waxaas oo dhan marka la isku daro faragelin bay ku hayaan walina xasuuq bay gudaha Ethiopia ka wadaan oo jabhadan iyaga soo hubaynaya ninkii badacas u socday hadda wuxuu leeyahay gudaha faragelin lagu haya badacas deeno garag ba ka sokeeya miska gaarba badacas ma santax shukr waayahay qodobkan intaasaan ku soo gabagabaynaynaa intaynu qodobada xiga ee la xiriiray Ethiopia isugu iman doonana fi amaan illah